السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دمان أصحابتا كحيران حلنا جنال waxaan idin leenahay mar labaadii mar saddexaad ku soo dhawaada waa xalna janaal waxaan idin leenahay mar labaadii mar saddexaad naga ilaawina like subscribe to share midnaha naga ilaawina waxaana ku guda jirnay casharkeenu koowaad maadada xisaabta chapterkii numbers mar labaadii mar saddexaad waxaan idin leenahay hay moogaanina inaa wehel noqotaan xalna janaal waxaanu ku guda jirnaa asxaabteena 1.3 casharkeeni saddexaad yani chapterka koowaad baynu ku jirnay waxaanu kaga jirnaa qaybtii saddexaad oo loo yaqaano place and total values baynu ka hadli doonaa insha Allah taala waxaanu ka bilaabanaa marka example baa lagu yiri write place and total values of all digits markii hadaba laga sheekeynayo marka wax leeyahay place value and total value place value wax leeyahay qiimo وقيمة وذرات هي قيمة الرقيد place value وقيمة الرقيد total value وقيمة واحد هذا وذرات هذا مركز واحد نكون بلعب دونا واحد هذا place value هذا مركز نكون حلينا واحد هذا place value سيدا ما أنت تقول أنا صوري قني أنا كيسو هذا 10 كواحد هذا position هذا drawing مركز واحد مهمة أرجو إنه برتو واحد هذا position هذا تركز position كأي ليدا هاي ما عنده مركز نكون حلينا 10 كها reading كا sida u jeedaan waxa la yiraahdaa ka soo qaad tiradu waxay kooban tahay waxa la yiraahdo 15 good waxaynu soo sheegnay marka waxa la yiraahdaa markaynu ku hadlayno waxa la yiraahdo place value qiimo waxa la yiraahdo rugeedka waxaynu ka bilaabi doonaa marka tirooyinka markay sida ay noogu qoran tahay dhanka waxaynu ka soo bilaabi doonaa midigta anagoo soo aadi doona dhanka bidixda hadaba waxaynu soo ogaanay waxaynu baraynaa markooda waxa laga rabaa qofku intuusan place value and total value uusan sheegin inuu markasta maskaxda uu ku hayo qiimo waxa la yiraahdo positionada tirooyinka ay leeyihiin waxaan soo sheegnay marka waxa la yiraahdaa markaynu ka hadlayno place value positionka ugu horeeya ama godka ugu horeeya saddexda ugu horeeya boqolaad baa la yiraahdaa saddexda ku xiga waxaan soo sheegnay in la yiraahdo thousands kumaad saddexda ku xiga waxa la yiraahdaa millions billions iyo trillions hadaba markaynu ka sheekeyn doono place value positionka ugu horeeya waxaynu oranaynaa positionkaasi waxa la yiraahdaa waa ones positionka labaadna waxa la yiraahdaa waa tens positionka saddexaadna waxa la yiraahdaa waa hundreds kadibna inta markay dhamaato positionka afraad waxaynu oranaynaa waxa la yiraahdaa waa thousands kadibna waxa la yiraahdaa positionka kalena waxa la yiraahdaa waa 10000s positionka lixaadna waxa la yiraahdaa 100000s positionka lixaad markuu bilaabayna wax ku bilaabayna waa millions waxay noqonayaa positionka labaad waa 10 millions positionka waxa la yiraahdaa ku xigana wuxuu noqonayaa waa 100 millions kadibna waxa ku xigaya billions يعني مش كلي واحد يثبت أو ترى سيدا إن قانون واحد كسو كردي دونا واحد اللي هو تنس بكسو كردي دونا يعني وونس تنس hundreds thousand 10,000 100,000 million 10 million 10 واحد 100 million billion 10 billion 100 billion trillion 10 trillion 100 trillions هذا بترى ساعة آخرنا مركب بوزيشن كان مركب واحد ربع أرضيه إنه مت كستأو كهيو كده مركب سؤالها هنا أوصل لعبنا مركب واحد ليري ترى ذا الوجوس وقري رايت بليس فاليو عن توتال فاليو قد كستأو ترويها كوبان واحد نقري دونا واحد إذا بليس فاليو وهذا ما شيء دونا سيدو كل واحد شيء دونا توتال فاليو مرنا إلا وين إن قدرت كاس مسكحة مركز تأو كهيسو هذا مركب ترى دي وين نقرني أو بليس فاليو ما نقبل لعب دونا هذا بليس فاليو مركا ينكو بلابي دونو لمركا هالكاس ayaan kasoo bilaabanayna oo waxaanu sheegi doonaa base value kadibna halkaas aan tagaynaa waxa markasta aynu ka bilaabi doono tirada wax la yiraahdo ones tirada halka u xigta waxaynu isku soo barnay in la yiraahdo ones marka waxa leenahay sigisku wax leeyahay wuxuu fadhiyaa booska loo yaqaano ones shanta waxay taalaa booska loo yaqaano kadibna waxa ku laabanaysaa positionkaagii booska labaad maxaa leedahay waa tennis waxa leenahay waxa fadhiyaa booska loo yaqaano tennis wanka ku sii xiga wuxuu fadhiyaa booska loo yaqaano hundreds tirida ku sii xigta oo positionkana waxa fadhiyaa booska loo yaqaano thousands sagaalka ku sii xigta waxa fadhiyaa wax la yiraahdo hal ilaa wid markuu hadana saa tirooyinka u kala xariiqato saddex ba halka iga tagtaas iga tagay kadibna halka waxa fadhiyaa positionka wax loo yaqaano waa ones tens hundreds waxa la yiraahdaa 1000 booska afrada waxa loo yaqaan waa maxay waa 10000 10000s eberka ku soo xigta wuxuu fadhiyaa booska loo yaqaano 100000s
7ka ku soo xigtay waxay fadhidaa booska loo yaqaano saddexda waa dhamaatay saddexda kale waa dhamaatay millions marka waxay fadhidaa baan leenahay booska loo yaqaano millions afarta ku soo xigtana maxay fadhiisanaysaa booska loo yaqaano 10 millions muhiimada koowaad casharka hadaa positionada aad fahanto casharkan aad inta kale aad wadeeg doona oo because waxa lagu xiri doona casharka ka horeeyay hadii aad mataqaana wax la casharka ka horeeyay aan hore noo soo daawana wax mar labaad ku leenahay casharka ka horeeyay maadaama casharka anagu waa u soo taxnay sida ay tirooyinka isku xigaan casharka isku xigaan markasta waxa muhiim ah waxa leenahay casharka koowaad wax la yiraahdo ku laabo si aad u soo ogaato wax la qaabka tirooyinka markaynu akhrinayno casharka hadaba waxaanu soo ogaanay place value ay leedahay 6 baynu soo ogaanay 5 baynu soo ogaanay 1 baynu soo ogaanay 3 baynu soo ogaanay 9 baynu soo ogaanay 0 7 4 hadaba total value marka aynu ka hadli doono waxa la yiraahdaa tirada markaynu sheegi doono 6 baynu sheegi doonaa positionkeeda yani total value waa qiimo waxa la yiraahdaa wadareedka ay fadhido kadibna waxay soo qaadanayna lambarka meesha yaal markasta waa soo qaadanaysa waxa leenahay waa 6 oo lagu dhuftay booska ay fadhido waa wanis yani booska koowaad ay fadhidaa waa 6 5 baynu soo qaadanayna waxa leenahay waa 5 oo lagu dhuftay positionka ay taalo waxa leedahay waa tennis yani 10 konton 1 baynu soo qaadanaynaa positionka ay fadhido waxa leedahay waa 100 maxaan ku dhufanaynaa 100 maxay noqonaysaa 100 saddex waa 3 baynu soo qaadanaynaa waxaynu ku dhufanaynaa positionka ay fadhido waa 1000 yani waa 3000 waxaynu soo qaadanaynaa 9 positionka ay fadhidana waxa loo yaqaanaa waa 10000 يعني waa 90000 box ku xiga waxa loo yaqaanaa waa eber sifir eberka wuxuu fadhiyaa positionka loo yaqaano 100000 maxaa soo baxaya sifir hadii inta lagu dhigto waxa loo yaqaanaa qiimo wadareedkiisu waa sifir halka waxa ka baraarujina marka sifirada meesha hadii ay ku jiraan oo lagu yiraahdo waxa soo sheegtaa total value wada qiimo rugeedkeeda soo raadi tirada soo qaadanaysa place value marka uu qordho qiimaha ay kaga beegan tahay baa waxa leeyahay waa ku dhufanaysaa 7 baynu soo qaadanaynaa booska ay fadhido waxa loo yaqaanaa waa million booska ay fadhido waxa leeyahay waa million waxay soo baxaysaa 7 million afar baa u dameysa 4 booska ay fadhido waxa loo yaqaanaa waa 10 million waxa soo baxaya 40 million marka muhiimada casharka aynu ku baranayna waxa weeye marka koowaad ardaygu inuu yaqaan qaabka tirooyinka casharka tirooyinka marka akhriso positionkeeda ogaato qiimo kastana positionkeeda sheegaysa 6 waxay fadhidaa ones 5 waxay fadhidaa tens 1 muxuu fadhiyaa hundreds 3 waxay fadhidaa thousands 9 waxay fadhidaa 10000 sifirku muxuu fadhiyaa 100000 waa qiimo booska ay fadhido weeye 7 wuxuu fadhiyaa million 4 maxay fadhidaa 10 million total value hadii lagu daro tirada soo qaadanaysa positionka ay fadhido oo place value wada waa ku dhufanaysa 1 is fadhidaa times 1 5 bay fadhidaa times 10 100 bay fadhidaa times 100 3 bay fadhidaa 3000 bay fadhidaa times 1000 baa ku dhufanaysa 9 waxay fadhidaa 10000 yani 10000 baa ku dhufanaysa 90000 sifirku wuxuu fadhiyaa 100000 markii lagu dhufto sifir baa soo baxaya positionka ay fadhiyo waxa loo yaqaan waa eber millionska markaynu soo qaadano waa 7 times waxa la million waa 7 million afar oo lagu dhuftay 10 million waa 40 million qiimaha marka saas aynu xalin doonaa marka example labaad waxa la yiraahdaa isla qiimahan la siiyay waxa tiradan baa la yiraahdaa waxa oo qordaa place value waa sheegaysaa total value waa sheegaysaa marka imtixaanka marka saa waa lagu weydiin karaa in lagu yiraahdo tiro kasto oo tirooyinkan kamid ah soo raadi place value total value wada soo raadi sidoo kale imtixaanka waxa lagu oran karaa lambarka hoosta ka calaamsan waxa soo raadaysaa place value total value sifirkan marka wuxuu fadhiyaa booska loo yaqaano 100 thousands sifirkan muxuu fadhiyaa positionka muxuu fadhiyaa sifirkani positionka marka 1000 soo dhaafno positionka loo yaqaan millions buu fadhiyaa hana isku khaldin million iyo millions fiiri inta hadii la yiraahdo waa 100 waa karnay laakiin 100 hadii esta badana lagu daro waxay tilmaamaysaa tiradan inay fadhido position yani place value baa laga hadlayaa sideed oo kale markaynu soo qaadano sideed waxay fadhidaa baan leenahay billion soo maaha waxay fadhidaa booska loo yaqaano 10 millions halkaana mid baan ka sii iftiiminaya waxaan ka sii iftiiminaya waxa la yiraahdo waxaan niri ones waxaan niri tens waxaan niri hundreds waxaan niri thousands
position kan 10 hundreds يعني waxa ka mamnuuc inaad dhahdo 10 thousands waa khalad tirada koowaad u qoraysaa esta waxay qaadanaysaa marka tan labaad baa qaadanaysaa 10000 100000 millions 10 millions hadii socon lahayd 100 millions billion bay socon lahayd haddaba inta markaynu ugu place value-ga aynu sheegno waxa ku dareynaa waxa loo yaqaan total value-ga total value-ga markaynu sheegayno waxaan total value-gu wuxuu ka sii farcam doonaa place value-ga qiimaha place value-ga soo qaadanaysa position-ka ay fadhida waa ku dhufanaysaa sabab baa soo qaadanaya waxaan ku dhufanayaa booska ay fadhida 1 yani 1 7 waxaan soo qaadanayaa 9 waxaan ku dhufanayaa wax leedo tennis tan baa ku dhufanayaa was 70 3 baan soo qaadanayaa waxaan ku dhufanayaa 100 waxay la mid noqonaysaa waxa loo yaqaano 300 waxaan soo qaadanayaa 4 waxaan ku dhufanayaa 1000 waa 4000 waxaan soo qaadanayaa 2 waxaan ku dhufanayaa 10000 20000 waxaan soo qaadanayaa 0 times booshiska ay fadhido waa 100000 because of waa qiimaha la sheegaya tirada tani waa 7 waxa loo yaqaan waa 70 300 4000 200 laakiin sifirkan hadii la yimaado sifirku wuxuu fadhiyaa waa 0 waa 0 times million 0 waa I times 10 million 3 1 2 3 equal hadda saasa loo qorayaa marka haddaba waxa laga yaabaa xilliga imtixaanaadka oo kale ama daraasaadka waxa laga yaabaa intaas oo dhan waa macquul in lagu weydiiyo marka qaarna waxa laga yaabaa in lagu cayimo oo wax la yiraahdo tusaale ahaan lagu yiraahdo waxa sheegtaa write place value and total value of underlined digits lambarka cayiman oo kale intaas oo dhan lagu diri maayo lambarba hoosta laga lambarkaas oo kale waa soo tirsanaysaa kan wuxuu fadhiyaa ones waan fahnay tennis wuxuu fadhiyaa hundreds wuxuu fadhiyaa 1000 wuxuu fadhiyaa 10000 kadibna waxa leeyahay 2 waxay fadhidaa 10000 balay total value-goodana waa 2 times 10000 wala 20000 saas u soconaysaa marka place value total value marka saas weeye marka place value waxa la yiraahdaa waa qiimaha position-ka ay fadhido total value qiimaha waxa loo yaqaanaa waxa la yiraahdaa waa tirada qiimaha ay u dhiganto baa la sheegayaa marka labada nooc baa hadii lagu dhaho wada sheeg mid kasta u sheeg hadii lagu yiraahdana underlined digit lambarka hoosta ka xariiqana sheegnayna saas u sheegaysaa marka ashakayna ugu sii marka waxa leeyahay expanding form marka waxa leeyahay waxaynu soo dhiganay wax la yaqaano place value total value baynu soo sheegnay kadibna markaan tiradan waxa qoraynaa expanding form yani waa total value-gi adayt total value-gi oo lagu sameeyay expanded soo ahaan ko tiradan meesha ka timaado oo kale markaynu qorayno waxaanu sameyn doonaa waxa la yiraahdo tirada halkaas aan ka soo bilaabi doonaa as total value baan u qori doonaa waxaan ku dari doonaa calaamada loo yaqaano pluska yani waxa leenahay waa 3 oo lagu dhuftay waxa la yiraahdaa 3 times 1 3 oo lagu daray 6 composition total value-geeda waxa loo yaqaanaa waa 6 times waa tennis bay fadhidaa waa 6 oo lagu dhuftay 10 waa 60 lagu daray 9 wuxuu fadhiyaa wax la yiraahdo qiimaha waxa wuxuu fadhiyaa waxa loo yaqaano waa 100s waa 9 times 100 900 oo lagu daray 1 wuxuu fadhiyaa 1000 1 oo lagu dhuftay waxa la yiraahdaa 1000 lagu daray 6 wuxuu fadhiyaa position-ka loo yaqaano wuxuu fadhiyaa 6 marka wuxuu fadhiyaa waxa loo yaqaano 100000 kadibna waxa leenahay waa 6 oo lagu dhuftay waxa la yiraahdaa 10000 yani waxa soo baxaya oo lagu daray 4 wuxuu fadhiyaa waxa loo yaqaano 100000 oo lagu daray 2 tan wuxuu fadhiyaa position-ka loo yaqaano million haddaba waa tirada marka expand hadii lagu dhaho qorsaas u qoraysaa tirada soo qaadanaysaa total value-geeda soo raadinaysaa calaamadana waxa u dhaxaysiinaysaa calaamada isku darka
يعني habka si fudud aan ku tilmaamo tirada soo qaadanaysa tirada marka soo qaatay 3 halka imse number baa ka xiga waxba kama xigaan 3 plus 6 kana soo qaadanaysa halka imse ka xiga 1 baa ka xiga hal number hal eber ku dar 1 lagu daray 9 halka imse ka xiga laba god waa 900 sorry lagu daray 1 ka soo qaadanaya imse halka xiga 1 2 3 1 2 3 lagu daray 6 kana soo qaadanaya imse ka xiga 1 2 3 4 lagu daray 4 kana soo qaadanaya imse ka xiga 1 2 3 4 5 lagu daray 2 kana imse ka xiga 1 2 3 4 5 6 sidaas way markaa adiga isbani fum lagu qor la yiraahdo tirada wadada ugu ruux sameynaysa tirada soo qaado halka wixii ka xiga sameey aysan ahayna tirada total value iyo suurada kadibna isku dardar sameey hadda tan oo kale markii laga shaqeeyo wax la yiraahdo short way-ga oo shaqeynayna waxaan leenahay waa 5 halka waxba kama xigaan plus 4 halka imisa xiga 1 baa ka xiga hal god lagu daray 3 ga imisa ka xiga kow labo eberkan soo qaadanaya halka imisa ka xiga kow labo saddex laakiin hadii aan ugu laabano xiriga total value-ga hadii aan ugu laabano total value hadaan xiriga ugu laabano tiradan kale total value hadii aan ifan aan sheegi lahayn tiradan seeba u sheegi lahayn yani eberkan oo kale waxa leenahay waa 0 times position ka ifrida wax leeyahay waa 1000 hadii la isku dhuftan eber baa ka soo baxaya halka ugu marka expanding funka marka qorayso wax la yiraahdo tirada hadii inta dhahdo ha oran imisa ka xiga 1 2 3 saddex eber ha qorin wax la yiraahdo tiradaas waa khalad expanding funka maadaama wax la total value-da maadaama 0 inoo soo baxay tirada hadii 0 ugu dhex jiro expanding formna wax la meesha awadayso 0 kaliya qoraysa oo lagu daray 0 kale oo lagu daray 6 ka imisa ka xiga 1 2 3 4 5 5 كانوا سوق هذا 5 كيم مساك حاجة 1 2 3 4 5 6 لو دري كان يمسا 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 sorry وأي قاعدة ويدا ماشوا 1 2 3 3 1 2 3 1 2 3 هذا بترى مركز هدي لو جده هو حلي هذا أقر نوع أساس على قراءة مركز سبرني فوق مركز waxaan kaaga digayaa marka shorti wayga hadaa qaadanayso wax la yiraahdo tirada fiiri 3 haba kama xigaan 6ka hal god baa ka xiga 9ka laba eber baa qaadanaysa 1ku 1 2 3 eber buu qaadanaya 30 6ku imsuu qaadanaya 1 2 3 4 40 qaadanaya 4 ku qaadanaya 1 2 3 4 5 50 2 wuxuu qaadanaya 1 2 3 4 5 60 laakiin tamarka oo nimaano wuxuu qaadanaya 1 0 ma qaadanayo ka wuxuu qaadanaya 1 0 wuxuu qaadanaya 2 0 wuxuu qaadanaya 0 maanta la qorin yani 0 kaliya baa la qaadanaya la qaadan maayo marka hadaa aad tagno su'aasha C waxa ku leedahay tirada tan marka waad aan tirada kala xirxirto 1 2 3 1 2 1 2 3 marka su'aashaas kale marka C waxaan ka dhigaynaa marka wax la yiraahdo waa homework dhamaan asxaab daawanaysa wax la homework xabadaas wax la yiraahdaa ashadani soo sharaxayna doona wax la yiraahdo بيننا فهمتي إن كل حبة واحد قف كسر واحد لقى ربع قف كي وباهن واحد إنه أجهضه وقت جميش أو كبحني إنه حكف هذي سؤال شامل كواد واحد اللي هذا مر كواد ريدين وصو آخر نيسان ريدين كذا واحد قول يذكر بقى واحد اللي هذا بليس فاليو هذا بليس فاليو هذا and total value كذا سودو كلام مركز تحنا وحكار ربع قاب كله يقانو expanding form إن شاء الله صدق قف وجوه رينا وحنا كويس دونا عشر يسيجا إن شاء الله تعالى وكويس دونا صدق قف إن شاء الله تعالى أنت وحنا نقول إن ما تعشر كأنها 1.3 وحنا كهذا دونا وحنا كهذا اللي بليس فاليو and total value يسدو كله أو يسوس تجدون تقاب كله يقانو expanding form أنت نقول كل مدونا عشر كهيجا واحد كيتجينا وأنو يسكت دوبان بهوي حلنا جنالو إذا له سداس يو نبت كله يهدي 10 كان فيديو عكيشنا واحد اللي هذا waxaanu ka codsan doonaa wax la yiraahdo inaad like-ta iyo subscribe-ta iyo wax leedo comment-ga iyo dhamaan aan ugu saacido intaan cashar ku xig doono kulmi doono waa xalana janaal oo isku duuban oo idin leh salaam Allah
ورا احمد ورا احمد